hay'adda samafalka Camuud Foundation ayaa deeq raashin gaarsiisay 100 qoys oo danyar oo ku nool deegaanka Camuud ee bariga Boorama. Raashinkaas oo isugu jiray bariis, daqiiq, sokor iyo saliid ayaa waxa goobjoog ka ahaa madasha lagu qaybinayay gudoomiyaha guud ee hay'adda Camuud Foundation Xaaji Maxamuud Faarax Cigaal iyo sidoo kale mas'uuliyiinta hay'addaasi ee Somaliland. Qoysaskan ay hay'adda Camuud Foundation u qaybisay deeqda raashinka ayaa ah kuwo baahi weyn u qabay isla markaana ay la soo darseen duruufo kala duwan. Gudoomiyaha guud ee hay'adda Camuud Foundation Xaaji Maxamuud Faarax Cigaal oo ugu horeyn halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu yiri maanta waxaan joognaa Camuud Valley baan joognaa waxaan soo xulanay 100kii qoys ee ugu dhibaataysnaa ee u raashin siinanay waxaan u dooranay halkan oo waxa dhinaca midigta iga xiga Camuud waxay iibsatay beer aan rabno inaan ka beerno wax soo saar oo ay noqoto insha Allah mustaqbalka dadkan in la tuso dhulkoogii hooyo wuxuu yahay ilaahay nicmo siiyay nicmada ilaahay waxa kamida nabadiiba ugu horeyso oo nabad baad ku yaad haysataan hadaa tihiin dadkii Somaliland number 1 waxa ilaahay dhulka barwaaqad weyn siiyay in dhulkii loo soo noqdo oo wax laga beero ayaan rabnaa in mashruuc ayaga soo socda inuu noqdo oo dadkana insha Allah aan caawino joognaa Camuud Valley baan joognaa oo annaku isla sumadnahay oo Camuud Foundation iyo Camuud community ilaahayna waxaan ka baryaynaa horta ilaahay roobinayso abaar baad ku jirtaan abaarta ilaahay inaga qaado laakiin se wax walba gacantiina ku jirtaa ducadu gacantiina ku jirtaa waxqabadku gacantiina ku jirtaa inta kadib gudoomiyaha deegaanka Camuud ayaa ka mahad celiyay deeqdani ay hay'adda Camuud Foundation soo gaarsiisay qoysaska danta yar leh ku nool deegaanka Camuud ee bariga Boorama waxaan u mahad celinaynaa oo mar labaad mahad celinaynaa oo mar saddexaad mahad celinaynaa Camuud Foundation oo nala degtay ayna soo gaarsiiyeen raashinka aan sheegay ee ah daqiiqda sonkorta bariiska iyo hilibka bale oo 100 qoys ka kooban geesta kale hay'adda Camuud Foundation ayaa deeq raashintaasi lamida u qaybisay 100 qoys oo ku nool deegaanka Faraweyne taasi oo hay'addu ugu tala gashay in muddo bila ay isticmaalaan qoysaska danta yar leh ku nool deegaankaasi gudoomiyaha guud ee hay'adda Camuud Foundation Xaaji Maxamuud Faarax Cigaal oo halkaasi ugu horeyn ka hadlay ayaa waxa uu yiri maanta waxaan joognaa degmada Faraweyne oo aan ku hawl jirno inaan qoodino dadka walaalahaya muslimiinta ee Somaliland ee dhibaataysan hadaan nahay Camuud Foundation oo degan dalka Mareykanka waxaan had iyo goor ku tababarshanahay dadka ugu dhibaataysan inaan caawino rabadaantan ka soo bilowno 2 milyan oo miilan siinay ilaa iyo 3 milyan ee dheeraad sanadkan alxamdulillah maantana waxaan aan nimidnay magaalada Faraweyne gabagabadii gudoomiyaha deegaanka Faraweyne iyo bulshada deegaankaasi ayaa uga mahadnaqay hay'adda Camuud Foundation deeqda raashinka ay soo gaarsiisay qoysaska danta yar leh ku nool deegaanka Faraweyne waa 100 qoys raashinka la soo gaarsiiyeen waxa weeyaan 4 item oo kala ah bariiskii daqiiqdii iyo sonkortii saliid ayayna soo gaarsiiyeen Camuud Foundation waxa kale ay noogu dartay hore noogu samaysay madrasad aad iyo aad u qiimo badan waliba ay noo ballan qaaday in qolal kalena ay ku darayaan oo qol kalena ay noogu darayaan ayay noogu ballan qaadeen waxa weeyaan aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa waxaan waad mahadsantii waxaan noo keenay haaf daqiiqa haaf bariis haaf sonkora saliidii waad ku mahadsantihiin waa Cabsalaan Bashiir Faarax Cabsalaan Saaha warbaahinta qaranka Somaliland magaalada Boorama.